waa inuu sheego uusan qarsan qofka noocaas aan waajibkiisu waa in la dilo ummadda laga dhiciyo ikhwaani fillaah dad badan hadda waxay la yaaban yihiin inaan masjidkan hadda soo galay waxay leeyihiin warkan madabaala waa la dilayaa maxaa meesha soo geliyey أعتقد أن الآجال بيد الله لا بيد البشر أجشو إلهي باهيه وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا نفنا إيضا وقت قيدي لقارين مرني ما نيسو وحان ليا دادك النوع عاسى عن أوضا ندونه عن اسكرد إنه aan diidno dulmigooda imise carruura oo sabtigii gelinka hore aabba lahaa oo maanta aan aabba lahayn imisaa hooyo lahaa maalinkaas gelinkii hore sabtigii aan maanta hooyo lahayn imisaa biil haystay oon maanta haysan imisa oo meherado shaqo lahaa oo u furnayd oo maanta laga burburiyo laga baabi'iyay war dadka saas u dhaqmaya waxaan arkayay gabar yar oo la leeyahay ehelkeedii cidii aragtaha soo sheegto hooyadeeda waa dhimatay la leeyahay war ma naxariisa ma diina ma aqliya ma dadnima xagee laga keenay tan ikhwaani fillaahi waxaan rabaa inaan ku celceliyo waa iska dhicinaynaa nimankaas waa iska celinaynaa waxaan runtii aad u bogaadinaya ummadda Soomaaliyeed ee fahantay hubku u aruursatay ee iska dhicin bilowday meelo badanna waa looga adkaaday hiiraan baa laga saaray masjid al-Gaduuda ugu dambeeyo hadda laga saaray meelo badanna waa laga saaraya kuwa waxaa laga yaabaa inay dhahaan war masjidkan marwaasay kula joogaan maxaad meel fog u sheegaysaa war waa dhuumanayaan hadday joogaan waa kaasay ha soo istaageen waa joognaa hadheen haddii kale annagaa joogno meesha dawladda joogto amniga joogo waa loo talinayaa xaqiiqduna sidaas weeyaan meel oo hadda ka reeban maamulka iyo dawladdu ma jiro masaajida wa anna almasaajida lillahi ilaahay baa iskale bal ka warrama qof rukuucsan iyo qof sujuudsan uu ka fakan waayo sheekh Cabdiqaadir Gacmay raxmatullahi calayhi isagoo masjid joogo rukuucsan ayaa rukuuca lagu dilay warnin rukuucsan nin dilay muxuu yahay berigaasaan sheegay muslim tukanayo masjid lagu dilo abu lu'lu al-majuusi baa soo bilaabay majuus buu ahaa gaal buu ahaa umar buu dilay umarna shahiidul mihrab buu ahaa saas weeye sheekh Cabdiqaadir raxmatullahi calayhi marka waxaan leeyahay aan nimankaas aan u midowno aan iska dhicino hal la soo sheego qofkii laga shakiyaba hal la soo sheego qolada amniga qolooyinka amniga idin dhow u sheega insha Allah waa laga adkaanaya nabiga ballan qaaday khawaarijtu waa laga adkaanaya dhulkan waa laga nadiifinayaa Soomaaliya xur bay noqonaysaa way ka samatabaxaysaa baraari iyo barwaaqayna gaaraysaa biidin illaahi tacaala warku waan badiyey intaasaan dhihi rabay raalli ahaada masjidka dad badan oo ku jiray waxaa laga yaabaa inay dhaheen mukhtaar hadduu soo galay kolay bama yeeri doone ka fogow waxba ma yeerin insha Allah mana yeerayaane cabsida horta qalbigiina ka saara ilaahay baa qofka dili karo ajashiisu u dhimanaya ogaada masjid naga reebanu ma jiro muslimkan la tukan doona waa la tashan doona waa insha Allah tacaala la shaqayn doona waxaan diyaar u nahay wax walba oo khayra ummadda inaan insha Allah tacaala aan kula dhex jirno ayaan rajaynayna waxaan ku soo gabagabaynayaa masjidkan marwaasa anigu mukhtaar ahaan raad gooni oo ugu leeyahay isagoo la dhisin oo masjid yariis oo waliba lagu daadegayo hoos loogu soo daadegayo god amal ah oo geed moogi baarmi oo geeda ku yaalay ma muxuu ahaa geedkaas geed baa ku yaalay marka ayaan ku soo tukaday anoo dhalinyaro ah markii la dhisayaan joogay la furaayay baan joogay raad kale waa igu leeyahay oo Allah u naxariistay Shariif Axmedey Shariifow ayaa riyaadu saalixiinkii ugu horeeyay meeshaan igu akhriyay رياض صالحين مركي يقول ريون أخرسهم مسجد كان اللي هو أخريي
شريف واد انت يا لوي رحمه الله عليه شريف وصف كان هore ku tukanayaan joogi jiray oo arday ku ahaay oo meeshan joogay sheekh maxamed haadi oo imaam meeshan ka oo tujinayo ayaan joogi jiray sheekhu ma nool yahay mise ma yaafitankii dagaalkii kadib meel uu aday garan maayo wala sheego wax yaro tabasho aha jirto waxaan leeyahay insha Allah ta'ala maamulka masjidka iyo ehelkiisa dhamaan hawshaasna si fudud oo dhow ayaan u gabagabaynaynaa biidni Illaahi ta'ala wasaaraddu ay gali doontaa waxaan leeyahay la tadlimuuna wala tudlamuun wajazaakumullahu khayr